kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan daawadayaasheena ku xiran barta facebooka ee Universal Somali TV iyo TV-ga Universal oo shanta qaaradood oo dunida aad naga daawan kartaan war degdega oo naga soo gaaray dawlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia gaar ahaan ciid wanaagsan daawadayaasheena meel kasta oo aad dunida ka joogtaan gaar ahaan daawadayaasheena ku xiran barta facebooka ee Universal Somali TV iyo TV-ga Universal oo shanta qaarad ee dunida aad ka daawan kartaan waxaan idin haynaa war degdega oo naga soo gaaray wadanka Ethiopia gaar ahaan warkaasi oo ku saabsan deegaanka Soomaalida ee Ethiopia guddiga fulinta ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa goordhow maanta ahayd waxa ay doorteen madaxweyne cusub kaasi oo bedeli doona madaxweynihii dhawaan ay isla guddigaasi doorteen si aan faahfaahin dheeraad u helno waxaa telefoonka Addis Ababa ku jira Khadar Cabdi Ismaaciil madaxii hore ee xarunta dhexe ee xisbiga deegaanka Soomaalida ee Ethiopia haddana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka deegaanka Soomaalida Khadar haddii aad maqli karto marka hore noo sheeg sida ay doorashadan u dhacday haddii aad u mahadsan tahay doorashadan ama sida loo ogsoon yahay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka socday ama u socday xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia shir ay ku lahaayeen caasimada dalka ee Addis Ababa taas oo ay ka dambeysay marxaladihii ka dhacay deegaankeena ama caasimada Jigjiga ama deegaankeena meelo ka mid ah waxaa la ogsoon yahay muddadii ugu dambeysay in xisbigu iyo xubnaha weliba xisbigu uu shir ballaadan uga socday caasimada dalka ee Addis Ababa taasoo lagu falanqeynayay ama lagu baarayay jiritaanka xisbiga iyo dhibaatadii dhacday taas marka waxay noqotay guud ahaan deegaanka ama dalkaba waxaa ka socda isbedeladaas oo ay tahay qasabna inuu deegaanku la jaan qaado marka shir degdega oo ay maanta galeen guddiga fulinta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia waxa ay ku doorteen in madaxweyne ku-xigeen isla markaana sii wadaha xilka madaxweynaha mudane Mustafa Maxamed Cumar madaxweyne ku-xigeenka dawlad deegaanka ahna sii wadaha talada madaxweynaha waxaa la ogsoon yahay in uu yahay xubin ama xubnihii ugu horeeyay xisbiga isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay deegaanka mudane Mustafa ama madaxweynaha cusub wuxuu ahaa ama uu soo maray wasiir ku-xigeenkii waxbarashada dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia wuxuuna soo maray macadka ama college-ka tababarada macallimiinta uu mas-uul ka soo ahaa sanduuqii dhaqaalaha oo uu soo waday marka mudane Mustafa ama madaxweynaha cusub waa xubin xisbi oo weligiiba ahaa xubnihii xisbiga ee awalba soo jiray waayahay marka madaxweyne ku-xigeen ayuu yahay tiri si hayaha xilka madaxweynahana wuu noqonayaa marka taa macnaheedu waxay tahay in madaxweynihii dhawaan guluhu doorteen ee Axmed Cabdi uu meesha ka baxay wasaasay ka dhigan tahay si loola jaan qaado markii hore aan sheegay isbedelada guud ee dalka ka socda waxaa lagama maarmaan noqotay ama guddiga fulinta ee xisbigu ay go'aansadeen in xubnihii hore ee sii joogay loo baahan yahay haddana xubna xisbiga oo dibadda ka joogay in lagu soo daro marka taasi waxay ka dhigan tahay madaxweynahan cusub oo ahaa xubin xisbi weligiiba sidaan hore usoo sheegay in uu noqdo ama ay ku doorteen madaxweyne ku-xigeen ilaa inta shirweynaha xisbiga laga gaarayo doorashadana la gaari doono si madaxweyne buuxa uu noqdona ay noqon doonto marka shirweynihii xisbiga uu dhaco doorashadana la galo marka isagoo hadda madaxweyne ku-xigeen ayuu wuxuu xilka madaxweyne kusii wadi doonaa ilaa inta doorashada laga gaarayo waaya marka goorme ayay fariisanayaan baarlamaanka xisbigu si ay u dhamaystiraan arrintan waxay fadhiisan doonaan hadda qodobada dhiman iyo kulamada dhawaan maalmaha soo socda uu madaxweynaha cusub la yeelan doono xubnaha xisbiga golaha dhexe iyo guddiga fulintaba kadibna go-aanadii socday beryahanba sidii loo howlmarin doonaa uu kala tashado
waxay noqon doontaa in deegaankii lagu noqdo xaruntii lagu noqdo isla markaana baarlamaankii la fariisiiyo sharcigiina saa lagu mariyo ayay noqon doontaa. waaya khadar markaa taa macnaheeda sow ma oran karno dabcan waxaa guulaystay rabitaankii dowladda dhexe ee Ethiopia iyo isbeddelkii ay doonaysa. taas isbeddelka deegaanka kama soo horjeedo oo isbeddelka dalka oo dhan ayuu ka socdaa, reformka dalka oo dhan ayuu ka socdaa. deegaankuna wuxuu ku qasban yahay ama xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliduna wuxuu ku qasban yahay reformyada isbeddelka socda in uu la jaan qaado. taas marka kama dhigno cid guulaysanaysa ama cid laga guulaysanaysa, waxay ka dhigan tahay mabaadi'da guud ee dalku ama reformka uu ku jiro dalku mid la jaan qaadayo ayay ka dhigan tahay. khadar dabcan dadka deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan dadka Soomaalida ee aad u daneynaya arrimahan deegaanka Soomaalida way ku jahawareersan yihiin xaaladdan. dhowaan waxaad doorateen madaxweynihii waa shaqayn waaye, hadda mid kale oo madaxweyne ku-xigeen ayaa doorateen, madaxweynena sii ahaanaya. dadka Soomaalida iyo guud ahaan dadka la socda xaaladda deegaanka ma u damaanad qaadi kartaa in arrintan ama tilaabadan ay tahay tii ugu dambeysay, mise waxaa suuragal haddana mar kale isbeddel kale oo madaxweyne kale inuu yimaado? waxaan shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia u dhashay iyo cid kasta oo danaysa aan u ballan qaadi karnaa xisbigu wuxuu ku jiray muddooyinkii ugu dambeeyey ama 3 toddobaad ee u dambeysay falanqayn dheer. tii horena kama dhigna in haddana isbeddel dambe ka yimid madaxweynihii ugu horreeyay Cabdi Maxamuud Cumar markii uu xilkii uu ka tegay si jiritaankii xisbigu uu sii jiro. waxa ay qasab noqotay in madaxweyne markaa ama booskii sii buuxiyo la sameeyo, iyada oo taa loo danaynayo. marka kama dhignayn walaale in isbedelkan uu dhacdhacayo ama culays gaara uu jire. waxay ka dhigan tahay jiritaankii xisbiga iyada oo loo danaynayo, oo ajendayaasha xisbiga gudihiisa ay kasoo baxayaan, oo rabitaanka uu xisbiga gudihiisa kasoo baxayo, in markaa hawlihii lagu jiray iyo qorshayaashii lagu jiray ay noqdaan mid kama dambaysa. waa ta aan maanta taagannahay yaan dhihi karaa, ama cid walba oo danaynaysa aan u sheegi karaa. marka madaxweynaha cusub Mustafa Maxamed Cumar oo ah nin dhalinyaro ah, aqoon-yahan ah, marxaladda maanta deegaanku ku sugan yahayna ka samata saari kara, una horseedi kara horumar, nabadgelyo iyo maamul suubanba. inaan cid walba oo danaynaysa aan u sheegi karno inay aaminaad buuxda ay ka qaadaan, dadkana isku soo dhaweyn doona wanaaga iyo shacabkana. khadar xildhibaanadiina hadda miyaa go-aan gaari doona oo la sugayaa oo Mustafa u ogolaa doona inuu madaxweyne rasmiya noqdo markii aad kulantaan, mise sidan ayay hawsh uun sii ahaa doontaa madaxweyne ku-xigeen inuu sii ahaado xilkaasna uu kusima kusii ahaado madaxweynaha? xildhibaanadu waxa ay ka yimaadeen xisbiga talada haya, isla markaana golaha dhexe ama hogaaminta ugu sarreysa ee xisbigu, guddigiisa fulintiisa iyo golihiisa dhexe iyo xubnaha xisbiguba waxyaalaha ay isla soo qaataan golaha baarlamaankuna maadaama ay ka mid yihiin waa ay hirgelinayaan. madaxweynaha cusub mudane Mustafa waxa uu mari doonaa procedure-kii madaxweyne, dhaartii ayuu mari doonaa, baarlamaankuna wuu ansixin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. qadar weli waxba kala maca, dadka weli waxay u baahan in la caddeeyo. Mustafa ma madaxweynaha rasmiga ah ee deegaanka Soomaalida Ethiopia, mise waa madaxweyne ku-xigeen oo keliya kuna simaya xilka madaxweynaha? intaa noo kala caddeey. waxaan rabaa inaan in yar dib ugu noqdo. Mustafa xildhibaan dowlad deegaanka ama xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ma aha. haddaba si sharciga loo waafajiyo ama sharciga lagu dabaqo waxa weeyaan waxa uu xisbigu u magacaaban karaa madaxweyne ku-xigeen, laakiin shaqada uu sii wadayo waa tii madaxweynaha. intaabkaa loo fahmo. haddow marka doorashada la galo ama ay gaadho waktiga doorashada uu xildhibaan buuxa oo deegaanka ah uu noqdo ayuu noqonayaa madaxweyne. laakiin hadda
xisbigu wuxuu go-aansaday isaga oo madaxweyne ku-xigeen ah in uu sii wado xilkii madaxweyne. loo fahmo doorashadu goormay dhacaysaa? doorashadu waa dalka waxaana ka dhiman 2 sano haddii ilaahay yidhaaho. marka 2daas sano Mustafa sii wadayo sii hogaaminaya deegaanka waa sida madaxweyne waxaa usii wadi doona deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar 2 sano ka dhiman. ugu dambeyntii goorme ayaad ku laabanaysaan deegaankii? dabcan inta badan xildhibaanadii iyo mas-uuliyiintii deegaankii xisbigii wali waxay joogaan leeyahay Addis Ababa. goormaad noqonaysaan? maalinka Jimcaha haddii ilaahay yidhaaho waxaa noo dhici doona shir ballaaran sidii hore loo ogaaba. golihii dhexe ee xisbigu wuxuu joogaa Addis Ababa, sida oo kale waxaa jooga hogaamintii kale ee deegaanka iyo xubnihii xisbiga. waxaa kaloo soo galay maanta aqoon-yahankii deegaanka, odayaal dhaqameedkii. waxaa maalinka Jimcaha soo socda haddii ilaahay yidhaaho nooga dhici doona shir ballaaran annagoo isku duuban ayaan tegi doonaa ama axadda ama isniinta haddii ilaahay yidhaaho. khadar cabdi ismaaciil madaxii hore xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Ethiopia haddana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaalida Ethiopia oo telefoonka Addis Ababa igu waramayay ayuu kaasi ahaa.